xukuumadda Somaliland ayaa TV-yada Astaan iyo sidoo kale True Cable TV ee ka howlgala deegaanada Somaliland ku amartay inay hawada ka saaraan ama rasiifaradooda ka saaraan telefishanka SNN TV ee qaranka Soomaaliya. wasiirka wasaaradda warfaafinta Maxamed Muuse Diiri Abees oo wareegto ku saxeexnaa soo saaray waxa uu sheegay in aan loo ogolayn TV-yadaasi oo ay ka saaraan rasiifaradooda ay daawadaan dadka Somaliland. wasiirku waxa uu sheegay inay TV-yada ka codsanayaan in amarkaasi ay fuliyaan sida ugu dhaqsiyaha badan leh. sidoo kale wasiirka wasaaradda warfaafinta wareegtadiisan uu maanta soo saaray waxa uu ku sheegay oo ku amray TV-yadaasi inay rafiisarada ka saaraan telefishanada Ariel iyo sidoo kale Horyaal TV oo xukuumadda Somaliland ruqsadda ka noqotay toddobaadkii hore kadib markii ay xukuumaddu ku eedeysay TV-yadaasi inay ka hor yimaadeen sharciga saxaafadda ee u yaala deegaanada Somaliland. waanada ka dhanka saxaafadda Somaliland ayaa ururka suxufiyiinta Somaliland waxa uu ku tilmaamay in xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ay albaabada ugu laabayso hay'adaha warbaahinta ee ka jira deegaanada Somaliland iyadoo xarunta xuquuqul insaanka madaxa bannaan ee Somaliland ay cambaaraysay xukunka lagu riday telefishanada Horyaal iyo sidoo kale Ariel TV. go'aankan ayaa ka daba imanaya markii telefishanadaasi ay sii baahiyeen ama hawada laga saaray labadaasi telefishan oo lagu eedeeyay inay faafiyeen warar ka dhana jiritaanka Somaliland. Ilyas Cabdi Cali, Radio Kulmiye, Hargeysa.